السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن wanaagsan idil ahaantiinba waa mar kale iyo muuqaal kale oo cusub oo aan ugu talagalnay inaan idinla wadaagno maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 3 bisha koowaad sanadka 2024. muuqaalkan maanta waxaan ugu talagalnay inaan idinla wadaagno si aan sharaxaad kooban idinka siino haddii ay dhacdo in aad soo booqataan magaalada Roma oo iyadu markaasi ah caasimadda dalka Talyaaniga. isla mar ahaantaana meesha maanta aan joogno waa xarunta ugu weyn ee markaasi ay ka baxaan tareenada iyo gaadiidka kale intiisa kale. wadada hadda annaga aan marayno waxa la raadaa Via Marsala. waxaan hadda ku sii wajahanahay oo aan rabaa inaan idin geeyo meesha ay ku yaalaan qaar ka mid ah dukaamada Soomaalida ku ganacsata magaalada Roma. haddaba si aadan uga lumin imaanshaheeda waxaan rabaa sharaxaad kooban inaan kilibkan idinka siiyo. wadadan waxaa la yiraahdaa Via Milazzo waxayna ku geynaysaa halka ay ku yaalaan qaar ka mid ah dukaamada ay ku ganacsadaan dadka Soomaalida. isla mar ahaantaana Soomaalida dhexdeeda waxaa looga yaqaanaa Somali Stack. mar dhow waxa inagu soo wajahan mid ka mid ah dukaamada Soomaalidu ay leedahay, isla mar ahaantaasna lagu iibiyo dharka iyo qaybo kale oo markaa dadka ay u baahan yihiin. haddii alla idmo waxaan isku dayi doonaa mid inaan markaasi waraysi uga qaadno haddiiba ay naga ogolaadaan. waa tahay wax yar kadib waxaan tegaynaa dukaankii aan idiin sheegay. dadka aad arkaysaan waa qaar ka mid dadka deegaanka ku ah magaalada iyo qaar kale oo markaasi ah dadka booqashada u yimid ee raba in ay markaa yeeshaan amaba ay dabcan dukaanka waa kaas maanta hadda aan marayno. dabcan kulli waxaan u maleynayaa qada in la aaday insha Allah taala mar baan imaan doonaa, isla mar ahaantaasna aan waraysi ka qaadi doonaa haddii ay noo suura gasho. waxaa kaloo jirta wadda ayadana markaasi ka mid ah wadooyinka ay joogaan Soomaalida oo la yiraahdo Via Magenta. isla mar ahaantaana ay ku yaalaan qaar ka mid ah dukaamada Soomaalidu markaa ay ku ganacsato. weli waxaan markaa ku sii soconaa wadadii kowdii aan ku soo dhacnay ee magaceedu la yiraahdo Via Milazzo. waxyar kadib waxaan tegaynaa xarun markaasi ka mid ah xarumaha uu leeyahay ururka Soomaaliyeed toos, isla mar ahaantaasna ka qayb qaata wax u qabashada Soomaalida ku tabaalaysan dalka Talyaaniga guud ahaan, gaar ahaan caasimadda dalka Talyaaniga. waxyar kadib waxaan tegaynaa xarunta arrimo amni amaba ogolaansho aanan ka haysan awgeed ma gelino gudaha u geli mayno, laakiin haddii alla uu idmo waxaan isku dayi doonaa in aan waraysi ka qaadno madaxweynaha ururkaasi oo isagu markaasi ah shakhsi aad u wanaagsan, isla mar ahaantaana ku caanbaxay uu samafalidda ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan isagoo markaan u fiirinin qaybta qabiilka ay ka soo jeedaan. qofkaasi magaciisa iyo muuqiisa waa idinla wadaagi doona, laga yaabo qaarkiin inay yaqaanaan. haddaba waxaan ugu soo wajahan waxay tahay xaruntu waxay ku taalaa wadada iyaduna la yiraahdo hadda aan ku soo dhacnay. magaceeda wadadan waxaa la yiraahdaa Via dei Mille ayaa la yiraahdaa. xaruntu waa taasa. dabcan wax yar kadib ayaan tegaynaa. xaruntu waa taasa oo waxaa la yiraahdaa sida meesha ka muuqataba astaantaas ayay leedahay, waxaana la yiraahdaa ururka Associazione Somaliyeed toos, waxaana halku dhig u ah Soomaali baa iska leh. marka dabcan laga yaabo inaan si qaldan u akhriyay, haddaba laakiin meesha waxaa idinkaga muuqda qoraalka. gudaha u geli mayno insha Allah taala. waxaan isku dayi doonaa mar kale in aan fursad ku raadino si aan u wareysano madaxweynaha ururkaasi sidaan horeba ugu soo sheegnay. waxyar kadib isagana waxaa nagu soo folle dukaan kale oo ka mid ah dukaamada ay Soomaalidu markaasi ay gacanta ku hayso, isla mar ahaantaana ay ku ganacsadaan. dukaankan waxaa lagu iibshaa waxyaabaha quudul daruuriga, isla mar ahaantaana ay bulshadu u baahan tahay. isla markaana waxaan isku dayi doonaa inaan waraysi ka qaadno haddii ay suura gasho. marka haddii ay noo suura gasho inaan ka qaadno in qofka markaa gadaya, isla mar ahaantaana aan jecelnahay inaan idinla wadaago. waa mahadsantihiin.